tahay annaga yaraanteeni waxay ahayn sheekooyinka ugu qosolka badnaa waxa kamid ah in lagu dhaho shaatigan waxa ku ciidi doontaa shaatiga ay ciid soo socoto in shaati weyn lagu gado dhexda lagu xiro wallahi waa funny ahead annaga laakiin hadda waxa arkaysaa ilmihii inay ka duwan yihiin sidoo hore aysan ahayn. magacaygu waa Maxamed Cali Dhaqane waxaan ahay software developer waxaan farxadda ciida la qaybsanayaa dhammaan qoyskayga saaxiibadeeda shaqada iyo macaamiisha shirkadda waxaan ugu hambaleynayaa farxadda ciida waxaan leeyahay meel waliba dunida ka joogtaan farxad ku ciida waxaan idin rajaynayaa ciidan ciida ku xigto inaan ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo acmaasha wanaagsaneed aan soo sameynay bisha Ramadaan waxaan ka baryaa inuu Ilaahay naga aqbalo oo Ramadaanta soo socotana nabad iyo caafimaad inuu gaarsiiyo. horta yaraanta ciid kasta waxay ciid oo farxad leh markii ay yar tahay waxyaabo qaar oo aan ka xasuusto waxa kamid ah habeen ciidaha kamid ah in aan ciidi u sugayay waqti dambe hurdo ila tagtay andan oo allaanka gacmaha iga marsan wajiga dhan iga halaabay subaxi ciida marka saasna ciideedii ay qayb ku nusqaanta farxadeedii hadaan wajiga aqarqarnay maalinkii oo dhan waxaan uga hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. ciidan ciideeda kale Ilaahay nagu gaarsiiyo nabad iyo farxad iyo baraaro sidoo kalena Ilaahay musiibooyinka abaaraha ummadda Soomaaliyeed Allah ka dulqaado. aniga yaraanteedii aad iga doonayd ciidaha waxaan ahaa qof aad ugu farxa ciidaha oo aad ugu wanaagsan aadna u jecel meelaha dalxiiska iyo ciyaaraha walow hadda waayadii hore aysan jirin sida haddeertaan meelaha dadka la geeyo ilmaha haddeertaan waxay leeyihiin meel la tago laakiin anaga waagaas waxaan ahayn kuwa ku ciyaara bastooladaha iyo qalabaadka yararka ah sidoo kalena waxaan aad ugu duwan tahay annaga yaraanteeni waxay ahayn sheekooyinka ugu qosolka badnaa waxa kamid ah in lagu dhaho shaatigan waxa ku ciidi doontaa shaatiga ay ciid soo socoto in shaati weyn lagu gado dhexda lagu xiro wallahi waa funny ahead annaga laakiin hadda waxa arkaysaa ilmihii inay ka duwan yihiin sidoo hore aysan ahayn. runtii qalabada ciid lagu ciyaaro inta aan xasuusto aqli oo markii ugu dambeysay ciidii ugu dambeysay waxa aad qori oo jabsi ah oo yacni laba kuul la gelinahay yacni mar walbana wiilashan waxay ku ciyaari jireen koolashaas marna bistoolo ku dhee laakiin inta aan xasuusto ciidii ugu dambeysay waxa aad qorigaas ugu dambeeyay ka bacdan wax dambe aan kuma ciyaarin. sidoo kale waxaan raaci lahaa in carruurta lagu barbaarinin hubka iyo waxaas oo sidoo kale intii lagu barbaarin lahaa loogu bedelo wax iyaga maskaxdooda dhisayo waxan aysan ka faa'iidi karaan dadka kalena ay wax uga faa'iidi karaan halkii lagu barbaarin lahaa qori iyo wax la mid ah. waxyaabaha markaan yaran jiray oo aan soo xasuustay ciid markii la gaaro waxa kamid ahayd in dharka ciida la soo gaday aan u ogolaan jirin walaalahayga ama asxaabta kale inay arkaan anigoo necbanaan jiray batatan in la arko maalinta ciida ka hor. waxaan ku dari lahaa inaan arkay mar dhow inay dadka qaar dhahayaan si hadii la fiiriyo dadka way dareemayaan ciida sida markii la weynaanayo sida markii la yaraa loogu farxi jiray inaan loogu farxi jirin oo loogu farxin ayna dhicin I don't know maybe sabab yani macnaha life issues la xiriira ee kida so dadka ciida ilma caruurta yar kolba ku farxayaan dadka waaweyn ee adultiska waxa dhihi lahaa ee idinka dhumin sparkiga ama kii maxaa appreciationka maalinta ciida loo hay si kasto pressure ama stress oo ku saaran yahay soo xasuus maalintaas maalin farxad inay tahay oo isku daydid as much as farxadii inta yarad farxada heli jirtay heres laakiin isku day ina yani intii amal ah heshid caruurta kale toona aasisid.